aniga ninka islaamka ii sheeganaya oo ismada ii sheeganaya oo kulay xabada bilaal hadda anaga TV-ga soo istaagayne ma caqli badnidin waa idin sheegayaa xaqayaad ku tumateen haddii aan eedadeeyo wallahi guryaheeda kugu soo galaya waxaan rabaa maantiina tafaafulo muuqaalkan aad soo daawateen caqliga Soomaalidu meesha u marayaan idin sheegayaa ninka dhalinyarada Yacquub la yiraa ayaan dhawaad markii Puntland shaqaaqadu ka dhacday waxaa lacag fooqal caqliga u soo diray Dani soo duul buu yiri imaaw maamulka maanta jira Dani oo madaxweynaha ka yahay afku difaac buu yiri boosh iyo qorya loo xiray war caqliga miyaa laadahay miyaadan jarmal joogin miyaadan muuqaalkan laga yaabin ninka la yiraahdo Auslanderka aad magangeliyada weydiisatay inay arkaan ka cabsamaysid miya inay dambi kugu tahay jarmal ahaan haddii muuqaalka noocaas lagu arko horta ma ogtahay Soomaaliyada ka dhib badan kuwa aad macaaradaysid isimada aad caayaysid kuwii dhisay waaye ninka la yiraahdo Puntland dhisay way dadka reer Puntland caqliyan markay isfahmi waayaan marjaca ay u laabtaan ee wixii isku xirma kala furaahu waxay ahaayeen isimada iyo ugaasyada iyo maraqyada iyo dadka odayaasha bay ahaayeen Saciid Cabdullaahi Dani horta waa nin mayal adag oo dhagax weeyaan marqaati aad ka ahaydeen dawladdan ka horeysay wuxuu sheegayay cid u jawaabto waay ninkii dhahay way darbiga lagala booday iyo telefoon baa la igala sheekaystay dad ba xilligaas yes u haystay maanta halkaas buu marayaa inuu dadkii dhalinyarada ah ibraah bulshada inta lacag u diro yiraa soo buduulo imaada oo qofka xitaa shakhsiyadiisa uu qalqal geliyo oo qofka xitaa wadanaad ka tagtay aynu wada joogno sharciyadiisa naqaano oo aad isku dhiibtay qoryoolay iyo waxaan ka imid iyo adoo isku dhiibay ninka la yiraa markaan ka imid ayaa ninka la yiraa Puntland garow dhex istagtay leedahay maraqeeda wax ka sheegaysa Soomaalida kuwa maraaqa aad caayayso wiilkiisa iyo adeerkiis muuqaalkaada inay gudbi karaan soo moogid inay dacwad kugu furi karaan soo moogid aeroboorka inta laga qabto lagu xiro in laga tuuri karo meesha soo moogid aqligaasu hagow kaaga jira Saciid Cabdullaahi Dani ma halkan kala hadlaya kun jeer baan la hadlay dad aqli leeyahay war maamulka Puntland la yiraa horta nabad bay ahaayeen dad ugaasyale oo odayaal leh oo tashaday bay ahaayeen ummadda Soomaaliyeed maamulada kalena ay ku daysadaan oo aynu ula baxnay hooyada federaalka magaca noocaas aan ula baxnay hooyada federaalka aan ula baxnay Soomahan waxa ku soo xigsatay galmudug aabaha federaalka ahayd adigoo marka aabaha federaalka iyo hooyada federaalka anagoo ahayn in hooyadii federaalka la caqabadeeyo oo la burburiyo oo de madaxii waxa la yiraahdaa inta badan hooyadu waa asaaskii dawladii dhimada federaalka asaaskeedii maanta inay naga duntaaho daawo mayna deen ummadda Soomaaliyeedna maamulada kale noogu daysanayay oo ninka la yiraahdo tartan baa jiray gadaal u celin Daniyow yeeli mayno dadka reer Puntland ee ugaasyada iyo isimadan cunugaas yarka uu gafay waxaan leeyahay war caqligiinu inta shaqeeyo iska qabta qofka qaldan waa taqaaniin haddii ay rabto dagaalkii Jaamac Ali Jaamac iyo Cabdullaahi Yuusuf BBC-dan ka dhageysan jiray xilliga nin garan lahay baana nin wax badan u soo joogay baan ahay xilligaaba Puntland soo martay maanta inay 90kii meesha joogto u laabato iyo 2000 ummadda Soomaaliyeed aqli ka dhaadhaca maahan dadka reer Puntland nabadda ku koray ee baraaraha ku korayna aqli ka dhaadhacaya maahan Saciid Cabdullaahi Dani finno ku dhaxwada reer Puntland haddaad qabiil ku taageeri lahayd iyo haddaad jufo ku taageeri lahayd iyo haddaad dawladdaada maamulkaada ka jeclaan lahayd qofka shakhsiga qabiilku meel ku geeymayo Dani birimaan saa dambe u dagaya dhulka uu duminayo laamigu jajabinayo guryaha uu duminayo xabada la dhacayo waxaasoo dhan adaa dhistay inay ku dhisnaadaan roon wax la dumiyo nagala sheekay maayo reer Puntland dadka reer Puntland waxaan leeyahay war Soomaali baan ku daysanaysay hadda maanta meeshaad ku socotiino wallahi meel sax maahan uqdada kaliya ha fiirinina waxaan waa la isdagaalaya waa dhamaanayna fiirinina dadka uqdada lagu kala beeray reer Puntland jufada loo qaybinayo ee qofka reer Puntland ka uqdada ku seexanaya ee berri asaguna waxa uu raba sameynaya fiirsha aqliga noocaas aan doonaya haddii aanan iska qaban Saciid Cabdullaahi Dani ee caadaqaataha ee dawladii timaadaba lugaha ku dhagan ee aynu ogeyn dawladdanadii wadaniga ahayd ee dalka iyo dadkaba dhisayday ee ciidamada noo dhisayday soo u galay maantay
inuu u naxo tan oo maamulkan uu u naxo rajaa ka qabanina wax dana uu ka leeyahay male waxaana uusan samaynayo isku warwareejinayo iyo xisbiyadan waan furayaa uu leeyahay waxaasoo dhan danbo ka wataa dastuur odayaal ku heshiiyeen oo shacab reer Puntland la yiraahdo ku heshiiyeen ayuu rabaa inta furo inuu qodobo ka saaro asaga liddi ku ah caqliga dadka marka ma foorara dastuurkan dad wada jiraa qoray haddii wax laga bedelayana wada jir baa loo bedelayaa laakiin qol baan ku xiranayaa baarlamaan asal leeyahay dastuurkan intayga hor imaanaysa bedela dadka reer Puntland u yeeli maayaan caqligana mala'a waa dad nabadana yaqaana nabad la'aantana yaqaana waxaas lagu dhowrayo ee lagu firfirsanayo oo dhan war way sheekadu yey weynaanin adeero isgaro tunka laga soo qaban karaa macashaas lagu soo dhigi karaa isgaro kada lacagta dadka shacabka aad cashuurta aad ka qaadisay ciyaalka ku fangareynaysid kada dadka la xiriiraysid oo leedahay soo amaana amaan jeclida adigu adeero amaan jeclida oday baa tahay waqtigaadi waa dhamaysatay jiilka ka dambeeyo mustaqbalkooda ku dheelin war dadka odayaasha ah aqli xuma ayagu beesha uu rababa ha jooge oday baa anaga nagabay danu Soomaalina oday baa nagabay dadka dhalinyarada baa loo baahan yahay inay wax qabsadaan hanaad u taageeraa oo aan ku rajo weynahay inuu ku guuleysan doono ina diyaar ninka la yiraahdo ninka wadaniyad baa ka muuqato waaraan dhan la yaraho maskaxdiisu nadiif tahay ummadda Soomaaliyeed qofkii wax garadana way ugu raacsan yihiin reer Puntland ugu dambeeyay waxaan idin leeyahay ciida dad iska qabataan ummadda Soomaaliyeed saa idin fiirsanayse guul iyo gobonnimo haddii qabiil iyo jufa iyo cun iyo iyo dastuuran badalay inuu soo laabto rabaahe aw soo laabtana wallahi oo billahi oo tallahi inuu Puntland burburiyo oo dawladda federaalka burburiyo maahane waji cusub baad u baahantiin kan waan ka badbatay mid cusub baa loo baahan yahay oo wax sii wada oo dawladda federaalka la heshiiya oo maamulkiina awood u yeela oo ciidanka dhisa oo federaalka in la mideeyo waa diiday federaalka in la mideeyo daniye cashuurta in la mideeyo waa diiday mid mideeyo wadaniyeyn u baahanaa hadaan u nahay shacabka Soomaaliyeed illa maamulka waa in la leenahay saasaynu u baahanay ninka meesha ka bixiya haraati afka uga dhufta asaga ciyaalka uu siinayo laaluushka aad iyo aad bad maadsantiin muuqaalkan maanta wuxuu ku socdaa reer Puntland haddaad reer Puntland tahay fikradda adigu aad ka aaminsan tahay Saciid Cabdullaahi Dan halkaas oo komadiga ku soo qor haddii dadka reer Puntland maamulada kala ah tahana sheer garay soo reer Puntland badan u gaaro aad iyo aad bad maadsantiin Soomaalnimada ha waarto ummadda Soomaaliyeed bageed burcada Allah isku mariyo maamulada anigu kuma qanacsani waxaan ku qanacsanahay dawlad federaal aan ahayn oo awood laan ku qanacsanahay Allah na siiyo madaxweyne waxaas oo dhan burburiya Allah keeno cagtu wax mariyaan rabaa wiyaa waxa mid walba qanci kara qanacsi mid walba rabaa aad iyo aad bad maadsantiin